وفرحدي iyo guushii ciyaartoyda kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliyeed laguna naanayso Ocean Starska waxaa galabta kulan aad u xiiso badan oo xamaasadiisa sitay garoonka KCC ee stadium uu ku dhex maray ciyaartoyda xulka qaranka dalka Burundi iyo ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ka oo ka tirsanaa groupka A oo ay Soomaaliya ka tirsan tahay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka ciribtiray xulka dalka Burundi kaabka Sakafa Senior Challenge Cup 2019 kadib markii gool cajiib ah uu ciyaaryahan Umar Cabdullaahi Maxamed oo ku magac dheer Omarani uu shabaqada Burundi uga shubay kubad cajiib ah oo uga timid ciyaaryahanka lambarka 6 ee xulka qaranka Soomaaliya ciyaaryahan Xasan Cabdinuur Geesay Xasaasi goolkaasi oo qaybtii hore ee ciyaarta dhashay ayaa bedelay dareenka taageerayaashii Soomaalida ahaa ee garoonka soo buux dhaafiyay waxaana gabi ahaanba isqabsaday farxad iyo hididiilo loo muujinayay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed ciyaartan ayaa markii ay soo dhamaatay waxa inoo suura gashay in aan wareysano ciyaaryahan Umar oo ahaa dhaliyihii goolkan isagoona sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyay kasii qaybgalka koobkan ee xulka qaranka Soomaaliya horta ana waxa dhiilaa ani kaliya ma soo celinin intii mahana ku badne markastaana gool qaranka u dhaliso wallahi waxa waaye wax oo aad iyo aad ugu farxo marka aad iyo aad ugu faraxsanahay wallahi ana waxa dhiilaa team ahaan kulligeen kalsooniya leenayna badino laakiin tartiib hadda cawadu waana saheena si fiican loo nasaa markaas ciyaarta la nigarti insha Allah aan kan wad gaari kartaa wallahi horta waxa dhiilaa ani xasaasi agtida wuxuu ka yahay Paul Scholes keenoo ka yahay marka baas macaan oo soo dhigay والله جلبكيga dhacday marka uu ku sii qabtay alxamdulillah wala goosha dhashay alxamdulillah wadila ciyaartooyda dibadda ka ciyaara ciyaartooyda Soomaaliya ka ciyaara kulligeen walaalaan ahnay marka insha Allah waxaan rajeynaa guul dhinaca kale waxaan wareysanay goolayaha ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya oo ilaaliya shabaqada goolhaya Saciid Yamani wallahi awal shay waa ku faraxsanahay taageeraha meel walba joogan la'aantooda wax maniyanaka mar walba Soomaali weyn meel walba joogtiin taageera guusha maanta gaarni aad oo faraxsana insha Allah game kalena gool weyn gaarna rajayna wallahi fariin waxa u diraa Soomaali weyn meel walba joogto waxa u dhahaa na taageera laantiin wax mani ila tarina insha Allah waa ka badi doona insha Allah ugu dambeyntii waxaan wareysi la yeelanay gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Uganda Master Omarios isagoona baaq dheer u jeediyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ما شاء الله ان runtii dhamaan horta taageerayaasha ka soo qayb galay meeshan garoonkan maanta mideynteena iyo guushan geeska gees Soomaaliya gaarta la rabaa runtii aadna ugu faraxsanahay kubad xasaasi oo aad u wanaagsan baa dheelnay alxamdulillah guushan oo ku gaarnay insha Allah horta baash game kan aan reena maanta waxayna siinaysaa confidence ka loo baahnaa runtii xoog weyn yani taageerayaasha ee maanta tuseen ee mudayeen إلا جيم كلا قبل تي كواد إلا ما أنت ولي للجوجان رنتي وحنسليه هي إريتريا صدق ذا بعض وان كقاعدنا إن شاء الله وأنا كواليفاي جرين دونا عبد الحكيم حسن أحمد عبد الحكيم دعي سنة شاتا برودكشن كمبالا